Boqor Cabdi Axmed Cali oo ka mid ah waxgaradka beelaha Soomaaliyeed ee Koonfurta dalka Soomaaliya oo la hadlay Harwanaag ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhaqanka Soomaaliduba ay garowsadaan sida ay uga shaqayn lahaayeen in gobollada dalka Soomaaliya looga ololeeyo sidii Somaliland madax-bannaani loo sii lahaa iyadoo aysan jirin wax dhibaato ah oo arrinkaasi ku xeeran sidoo hadalka u dhigay. Boqor Cabdi Axmed Cali ayaa sheegay in Somaliland muddo 30 sano ah ay ku dhibaatoonaysay sidii ay xornimo ku heli lahayd, taa beddelkeedana dowladda Soomaaliya ay tahay tillaabada kaliya ee Somaliland ay kaga heli karto madax-bannaani inay dhankeeda u qaaddo, balse uu sheegay in taasi abuurtay cadaawad iyo in hadallo kulul siyaasiyiintu isku mariyaan warbaahinta. Boqor Cabdi Axmed Cali ayaa sheegay in Soomaalidu ay ahayd shan midaysan oo calanka astaanta Soomaaliya uu ka tarjumayo, balse waxa uu sheegay in iminka ay ka harsan yihiin kaliya Hargeysa iyo Muqdisho sidoo hadalka u dhigay, isla markaasna ay muhiim tahay in Hargeysa haddii iyadu ay midnimada baxsad ka tahay loo fasaxo sida uu hadalka u dhigay. Isagoo arrimaha ka hadlayna wuxuu yidhi: magacaygu waa Boqor Cabdi Axmed Cali, boqorka beelaha Hawiye. Halkaan inaan kaga jeediyo soo dhaweyn iyo bogaadin iyo aqoonsi aan leeyahay hala aqoonsado Somaliland. Marka koowaad waxaan leeyahay Somaliland maadaama ay 30 sano raadinaysay intiraaf, halkaan xildhibaanada jooga ama xagga ayna tegi karin. Soomaalidii kale oo koonfurta ahna ayagii laftigeedu hadda ay saf garan weysay oo koonfur galbeed kuwooda ay haystaan, Jubbaland ay haystaan, nimanka la yiraahdo Puntland ay haystaan, qoladii kale oo halkaan ninka la yiraahdo uu hortaagan yahay Mahdi Guuleed oo tagi karin Hargeysa iyo Togdheer iyo midna aan tagi karin iyo gobollada Somaliland. Madaxtooyadiina uu fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo geli waayay. Ka boqorhaan waxaan leeyahay gobollada Soomaaliya in looga ololeeyo, la isku raaco, la aqoonsado in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan loona ogolaado. Sababta oo tahay waxaa loogu ogolaanayaa 3 shay jirta in loogu ogolaado. Marka koowaad inaysan jirin Soomaaliya hal madaxweyne iyo hal ra'iisul wasaare oo isku raacsan yihiin oo dalka Soomaaliya inuusan jirin. In ayna jirin xildhibaano rasmiya oo si sax ku yimid oo Soomaaliyeed inaysan jirin. Marka waxaan leeyahay Somaliland ka boqorhaan waxaan leeyahay ha laga leexdo, yaan la siyaasadayn. Dhammaanna waxaan leeyahay gobollada Soomaaliya looga ololeeyo, aqoonsigoodana ha loo madax banneeyo, hana laga leexdo. Somaliland waxaan u soo dhaweynayaa oon leeyahay ka boqor ahaan madax bannaanidiina waan kala shaqayn doonaa insha Allah, maadaama Soomaalidii koonfur ay baabaaday, maadaama ay kala xirteen xildhibaanadii, maadaama waxyaabo aan munaasib ahayn. La Soomaaliya waxay ahayd calanka shanta geesood, maadaama aragtay xidigta shanta geeso shanta Soomaaliya tilmaamaysa. Waxay tilmaamaysay NFD oo Kenya jirta, Soomaali galbeed iyo Raas Casayr, Raas Kaaboni iyo Djibouti. Marka Raas Casayr, Raas Kaaboni isku soo haray, NFD way go'day, Soomaali galbeed way tagtay, Djibouti waa tagay. Iminkana waxaan leeyahay Somaliland haddana ayuuna waa xor. Ka boqorhaan waxaan leeyahay Somaliland waa xor, hala madax banneeyo. Maanta ka hor anuu kama aanu hadlin, laakiin markaan arkay Soomaaliya meesha u socoto iyo lugooyada iyo dhibaatada iyo iska dabuureega iyo waxyaabaha la isku agardaamaynayo nin kasta maamul goboleedu uu rabo suuna maamul goboleedkiisa xukunto, waxaan leeyahay Somaliland hala madax banneeyo. Ka boqorhaan waxaan leeyahay la madax banneeyo insha Allah, waana kala shaqayn doonaa, waana beelaha wiyo dhanna waxay qaadan doonaan haddii Ilaahay idmo inay hesho Somaliland madax bannaani hadday heshana wax kastoo ka yimaada meel kale aadma dulkana aadi maayeen waxay soo aadayaan Soomaaliya. sababta oo tahay waxaad ogtihiin Puntland iyo Galmudug inay xiriir la leeyihiin, ganacsi la leeyihiin, xoolaha kala qaataan, barbara alaabtooda soo degto, boosaas alaabta ka degtaan oo ay tagto beesha la yiraahdo Hargeysa, midda ka tagta Hubyana ay tagto halka. Marka waxaan leeyahay si ummaddu loo maamulado maadaama kana uusan noqon maamulkii la hamayo uu noqon waaye, maamulka nabadgelyadu ka jirto oo dhibku ka taagnayn oo shidadu ka taagnayn oo Soomaaliyeed oo Puntland beesha marka la yiraahdo Somaliland. waxaan ka boqorhaan leeyahay
anoo ku bogaadinaya inay arrinteeda kusii jiraan Soomaaliya wax ku daraan annaguna waa taageeri doonaa insha Allah waana aqoonsan doonaa